بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله waxaan eegaynaa maanta sida loo garto speech problemka caadiyan waxaanu naqaanaa in labada cortex ee maskaxda bixi iyo midig ay qaybta leftigu tahay dominant dadyoga midiglayaasha 99% lefti baa dominant waa dadyoga bidixlayaashana waxa uu ah 30% ay dominant u tahay 70% sorry ayay dominant u tahay soddonka kale waxa ay u tahay waxa uu ah raadka dominant ah yani dadyoga bidixlayaasha 70% lefty brain cortex-ka ayaa dominant u ah 30%na right cortex-ka ayaa dominant u ah marka haddii qofka leesha kaga dhaco leftiga wuxuu yeelanayaa speech problem hadduu raadka kaga dhacana wuxuu yeelanayaa cognitionkiisii iyo inuu kala garto agagaarka iyo wax ku wareegaysan uu garto ayaa impaired noqonaya marka waxaanu kala qaadaynaa warnigis aphasia ama receptive aphasia Broca's aphasia ama expressive aphasia iyo connection aphasia mid walba maxay u gaar mid walba muxuu kale kaga duwan yahay hadduu yahay warnig wuxuu mushkilad ka jiraa superior temporal gyrus waxaana sablay garaya inferior division of left middle cerebral artery inferior division ayaa quudiya maxaa lagu garanayaa marka warnigu waa qaybta sensory-ga ah ee hadalka maqasha hadalka marka ay maqasho ee la process gareeyaa deetabasa hadalkii la yiraahdaa maadaama leesha ka jiro hadalkii ma maqlayso hadalkii sensory ahaan ma soo galayo deedna waxa dhacaysa qofkii in markaad hadal ku tiraado uu hadalkii u maqli waayo compressionkiisu waa impaired haddaad ku tiraado ku celi iga daba dheh repetitionkiisu waa impaired haddii uu tiraado iskii u hadal kiyo madax bannaan uu hadlaya hadalkaas laakiin wuxuu noqonayaa hadal marka qaarkood aan sax ahayn kelmadaha la isweydaarinayo marka qaarkood kelmado cusub oo gaar ah u samaysan qofkii Broca's aphasia isaga mushkilad ka jirta meesha loo yaqaan frontalka inferior frontal gyrus waxaana mushkilad ka jira fasalka la yiraahdo superior division of left middle cerebral artery marka superior esta iyo expressive double s isku xasuusanaysa ninka isaga waa qaybtii hadlaysay hadalka soo tuureysay hadalkii uu maqlaya laakiin maxay waxa weeyaan hadalkii uu maqlaya compressionkiisu waa okay haddii uu qofkii uu siraado hadalkiisaasi wuxuu noqonayaa mid aan degdeg ahayn wuxuu noqonayaa mid istaagaya mid pressure ku ah noqonaya waxaa jirta qayb la yiraahdo connection aphasia isku xidha warniga iyo Broca's-ka waxa qaybtaasi ay ka samaysan tahay axonis-ka ku wareegaysan myelin sheath waxa weeye myelin sheath wuxuu kordhiyaa speedka uu action potentialku ama information uu gudbinayo ee la isku xidhay labada meelood marka comprehensionka iyo hadal orasho ogsaanida ama qofku ka myelin sheathkiisa acute fasciculus-ku ay ka wanaagsan yihiin ayuu ka hadal orasho wanaagsan yahay marka waxa dhacda ilmaha carruurta yaryar ee hadli kareen waxay ka dhigan tahay myelin sheathkooda axonis-ka ku yaala acute fasciculus-ka ayaan si wanaagsan u shaqeynayn ayaan myelin wanaagsan lahayn deedna qofku markuu weynaado myelin sheath wanaagsan uu ku yeesho waxa dhacaysa markaa inuu hadalkii oraashihii iyo fahankii iyo wixii dhan ay u bilaabanto deedna qofkii markaa hadal barto marka isaga mushkiladiisu waxa weeyaan repetitionkiisa buura marka compressionkiisu waa okay speechkiisuna waa fluent speechkiisuna waa maxay waa fluent marka compressionka iyo speechkiisu waa okay waa fluent ninka la oran jiray warniga speechkiisu fluent buu ahaa laakiin maxaan kaga saarayaa ama ku kala duwan yihiin warniga iyo connectionku waa comprehensionka hadduu comprehensionku jiro waxa weeyaan speechku fluent yahay waa connection haddii comprehensionku meesha ka maqan yahay oo speechku kaliya fluent yahay waa warnig waxa jira mid la global aphasia waxa weeyaan waa saddex meeloodba waxa weeyaan expressive-kii iyo receptive-kii way israacsan yihiin macnaheedu waa maxay waxa proximal ku xidhan yahay yani meesha intaan kala qaybsan middle cerebral artery-gu aanu noqon inferior superior ayuu go'ay marka ninkaasi communication ma samayn karayo laakiin wuxuu ku isticmaal karayaa gesture ahaan buu isticmaal karayaa muxuu isticmaal karayaa gesture ahaan okay aan kala saara daba waxa weeyaan qofka ku yimid speechkiisu waa fluent inkastoo uu kelmado cusub ama kelmadiis weedaarinayo waxaan eegayaa compressionkiisu hadduu yahay intaag hadduu yahay waa conductive aphasia
compressionkiisu hadduu imberer yahay waa wording aphasia waxaan eegayaa speechku waa hadduu yahay speechku non-fluent waxaan eegayaa compressionkuna miyuu imberer meeyahay hadduu compressionku imberer yahay speechkuna uu non-fluent yahay labadiiba way israaceen macnihiigu waa maxay waa global laakiin haddii speechku non-fluent yahay laakiin qofku wax fahmayo oo compressionkiisu intaag yahay waxa weeyaan wuxuu mushkiladu ka yimid brokis buu ka yimid brokis ayuu ka yimid marka inaasa kusoo koobina insha allah waxaa loo yaqaano speech problem